بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلهم وعنه ونحسن داوديال كسر هذا برنامج دود علمية وأنا وجه اللي دونه نقالها ذلك الصومالية برنامج كان وحامرتكو حلبان دكتور علمي محمود نور وكم إذا حمناه قلها شعب كبرلمان كفدرال كصوماليا سيدو كان لو كتير جد جماليات قلها شعب كبرلمان كصوماليا وحامرتي قيب كبروفيسور بشير شاه عبد القادر وأرمها نقالها وحبا كي قانا كان مدى أقويانا الصوماليات ذلك كسران قطر عبد الله حسن وقدوميها قولها دحي أورك النكسة هي سوق القيبكة ويدنا مرتدى برامج كام بانر كفردة سؤالات اسكو ويدين دونا قيبكة وحنكو إيجي دونا حالة دقالة ذلك وحاجرتي لو برنامج وكلا وكوريس وأمني سياسة وقصو هذا الله كنا وكي وجودن بيه والنقالة كو إيجي دونا وحتى بكريه أما برامج كان سؤال بقولي معد كسمدون وأنا مضل ددويني وأن فرصة أصيني سؤال ويديان حمنا أخويا هندي مسؤولين القرن كيسوق جرب مركو هراء مدن الصود هذا برامج كوقتين وذكرهم هذا علينا وحنكون باللابيا حلبان دكتور علمي محمود نور وحمنا قلها شعب كبرلمان كصوماليا كتصل مدن حلبان الصود وفهم حمنا نقصي ست هلك أي مرة نقارها صوماليا يو دولتي هذا حقوقك كرافة كان هذا قصني بسم الله الرحمن الرحيم مركو هراء معدك سمدون بعد بو معدسين هاي سوسو دبردي كلن كان يسقى وحنا سلام يا أصحابته يقول قيب قال يا هالكم بنالك ودكتور بشير يوم خضرة وحنا سلام يا دمان أنت كسو قيب كشيء أنت ندقي سنة يسوي دمان تود وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رونهانتي موضوع دقاله واد بو بلاني هاي ما أنا مد وقت كوبان لو سو كوبي كرو marka laga hadlayo dhaqaalaha dhinacyo fara badan baa laga eegaa marka koowaad waxa laga eegaa nolosha bini aadamka dalka iyo muxuu ahay meesha taagan tahay waxa laga helaa maaliyadda dalkaasi iyo dakhligiisa soo galaya waxa laga eegaa muxuu ahay wax soo saarka iyo muxuu ahay iyo waxa uu dhoofiyo dalku markaasi ay ka soo gasho muxuu ahay maaliyaddu ka soo lacag ka soo gasho waxa la eegaa shaqo abuurka iyo sida ay muxuu ahaa bulshadu shaqo cusub ama muxuu ahay kobac shaqo oo muxuu ahaa u sameysmayo waxa la fiishaa muxuu ahay sida uu degan yahay sicir bararka iyo muxuu ahay nidaamka maaliyadeed oo ah markaasi muxuu ahay lacagta dalkaasi isticmaalayo waxa la fiirshaa ودرسك محوها هاي صوص عضية مقتى مستقبلك هي محوها قابكو كو مقتى ديسنية هاي رنتي دنايا فربضن با محوها هاي إن لقى في رشوبان وحكلو الله إيجا investment كدلك اللي قصوا مال قشيك اللي قصوا ما يناي أنت أوليجي هاي بس صوت شريا أنت محوها هاي كردية وحل إيجي محوها هاي دقيقة جناعسي دلكاسي جوديهيسا كصعدة سيدا ومركزي وكبعيو waxyaabaha soo dhan baa markaa runtii u baahan sektaradaas oo dhan ama dhinacyadaas oo dhan baa u baahan in la eego dhaqaaluhu wuxuu ku base garaysan yahay markaa mugtii dhaqaalaha muxuu ahay laga hadlayo marka hore horta maxaa asaas u ah dhaqaalaha dalkaasi sourceska dhaqaale ee dalkaasi ku dhisan yahay maxay tahay inagu si traditionally ama si weligeedba dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku dhisnaan jiray xoolaha nool buu ku dhisnaan jiray dal xoolaleeya oo la oran jiray 70% xilliyadii hore inkastoo hadda markay statistics wax moogtahay tirakoob oo dhab oo la haysan jirin ayaa muxuu 70% inay dal xoolo dhaqaata yihiin isla markaana dhaqaalaha uu ku dhisnaan jiray 60 ilaa 70 oo markaa uu ku dhisnaan jiray muxuu ahaay GDP da dhaqaalaha ama wax soo saarka guud ee dhaqaalaha uu ku dhisnaan jiray waxaan moodaa sanadahan dambe in aanan moogtahay si dhaba aanan loo daraasin laakiin waxa laga gudbay waxaan moodaa in hadda muddadii burburkii intii ka dambeysay dhaqaalaha Soomaaliya si xoog leh wuxuu ugu dhisnaa dhinaca muxuu ahaay service-ka dhaqaalaha waxa la yiraahdaa moogtahay beero ama xoolo warshadley iyo muxuu ahaay services oo muxuu adeega waxaad moodaa macnaha waa stages oo dhaqaaluhu maro stage-ka koowaad waa stage beeraleeya
ama waqti caynkaas oo kale stage-ka ku xiga marxaladda ku xigtay waxa weeye marxaladda warshadaynta ayaa markaas ku xigta markuu dhaqaaluhu si dabiici ah u kobcayo weey marxaladda ku xigtaana waa marxaladda adeegga weey laakiin muddadii burburkii imika muxuu ahaay oo dhan dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku dhisnaa adeegga ayuu ku dhisnaa taas markaas runtii u yeelaysa muuqaal gaar ah dhaqaalaha Soomaaliya markii laga hadlayo muxuu ahaa ilaha dhaqaale ee dalka iyo dhinaciisa waa maasantahay xildhibaan Dr. Cilmi aad oo maasantahay sharaxaad bixisay waana kugu soo laaban doonaa waxaan rabaa sidaas si lamid inaan fursad siiyo oo isagana wixii uu ka og yahay xaaladda Soomaaliya dhanka dhaqaalaha oo noo sharaxo Dr. Bashiir Sheekh Cabduqaadir soo dhow mudane Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda maanta halkay joogto bismillaahir rahmaanir rahiim madasha iyo centerka iyo dhammaan asxaabta ka soo qayb gashay iyo saaxiibada panelka ila fadhiya dhammaan waa idin salaamaya qof la arka maqaamkiisa ayaan ku salaamaya salaan kadib waxaa ila tahay professor Dr. Cilmi si wanaagsan ayuu ugu dhaadhacay hoos sida dhaqaalaha iyo sectorska laga imaanayo markii laga hadlayo dhaqaale iyo isbedelkiisa hada bal wax yar hadaan ku dara aniga horta dhaqaalaha iyo siyaasadda way iswadaan waxa siyaasadda u adeegtana waa dhaqaalaha wuxuu u adeegan waa siyaasadda marka sida iskugu meelan yihiin haddii siyaasaddii aysan deganaan lahayn haddii siyaasaddii aysan kobac lahayn haddii siyaasaddii amni fiican ay lahayn sektaradaas oo dhan ma shaqeynayo maanta dhaqaalaheena hal sektor ayuu ku fadhiyaa sektorkaas oo ah serviceka keliya adeegana ma keeno in growth uu ku dhaco dhaqaalihii inuu koro oo kobca dhaqaalahan waxaa la rabaa inuu kusoo laabto bulshada inuu kusoo laabto inay isbedesho awoodooda waxgadashada awoodooda marka income-ka ama profitka serviceka ka imaanayo inta badan wuxuu aadayaa dadka oo investedka gashtay oo lacag ku dhalay laakiin dadka hooso ma soo gaarayo barwaaqadii ama barwaaq soorantii hoos uma soo degayso bulsho aanan lahayn dhaqaalaheeda aanan ku dhisnaan beerihii iyo xoolihii aanan lahayn warshadihii yaryaraa slidekii warshadihii ahay aanan lahayn wax soo saarkii kale oo loo baahnay dhaqaalaheeda sida u kobcayo in la qiyaaso way dhib badnaanaysaa serviceka keliya serviceka la-aan dhaqaalahaas kobcaya waxaa laga yaabaa mararka qaar sicir bararka xataa oo hadda uu tilmaamay inaan si fiican loo sameynin haddaan mar la arko marka la dirinayo GDP-ga haddaanan laga saarin sicir bararka oo base yearka aan loo noqonin oo laga saarin waxaa soo baxayo macluumaad oo qaldan oo ku tusaya koror inuu jiro laakiin kororna aan jirin marka waxaan isleeyahay maanta waa arkaa waraaqooyin badan iyo ribooro badan laga soo saaro la dhahayo dhaqaalaha Soomaaliya wuu kobcaya laakiin shaki badan ay igaga jira sida loo qiimeeyay sida loo xisaabiyay iyo sida loo gaaray markii indhahan waxa ujeedaa dhaqaalahan inuu hal sector oo service xoog u saaran yahay beerihii ma shaqeeyaan kalluunkii ma shaqeeyo waxa uu sii daran kalluunkii hadda waaba si baaba'ira ama khatar la sii gelin rabaa waa maasantahay ugu soo laaban doona su'aalana waan ka weydiin doonaa mawduuca kalluunka iyo waxyaabaha kaleba Khatar Cabdulla Xasan xagee ku cabiri lahayd ama ku tilmaami lahayd maanta heerka dhaqaale ee Soomaaliya aad u mahadsantahay waxaan rabaa inaan halkan ka salaamo marti sharafta dhigayga ah ee barnaamijka la qayb galayso iyo asxaabta kale ee barnaamijka ka faa'iideysanaysa ee halkan joogta mansabka ee ku fadhiyaan dhamaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum galab wanaagsan markaan ku soo laabto dhanka dhaqaalaha ah aragtideeda markii aan ka hadlo maanta waxaan isleeyahay dhaqaale maanta la sheegay inuusan wadanka lahayn
uusan jirinba dhaqaale maanta waddanka la sheego oo lagu faani karo ama laga hadli karaba inuusan jirin sababtoo ah dalka wuxuu leeyahay ila dhaqaale uu leeyahay ilaha dhaqaale uu dalka leeyahayna waxaa ka mid ah xoolaha iyo beeraha intaba waa laga wada daneystay ama waa laga wada seexday dad yar un baa soo haray oo beerihii hadda tabcaya sidii la rabana uma tabcaan wasaaradda beeraha ayadana ma garanayo shaqada ay qabato oo hadirtaan dalagii ay ka jeefatay xoolihiina waaba iska baabi'eenba duruufo iyo maxaa la dhahaa abaar iyo waxyaabahaas ayagana baabi'iyey maanta dhaqaale oo laga hadli karo aniga waxaan aaminsanahay inuusan jirinba inkastoo sidii horeba ay hadda ay dhaanto 2 sano ugu dambeysay markii laga soo baxay abaaraha kadib waxaa moodaa xogaa yar inaan dhaqdhaqaaq sameynayno laakiin dhaqaale laga hadli karo ma jiro waa maasantahay waxaan rabaa inaan kusoo laabto xildhibaan doctor cilmi maxamuud nuur mudan xildhibaan dhaqaalaha waa sharaxday meelaha laga filayo Soomaaliya waxa ugu badan xoolaha hayeen baa tiri beeraa jira badii baa jirta hadda service-ka lagu nool yahay maxaa ugu weyn sababay in inta kale ay shaqeyn waayaan bismillaah waxaan isleeyahay runtii muddadii burburka lagu jiray baad moodaa arrimaha ma ha noqoto beeraha iyo inkastoo xooluhu deemka wali ay jiraan oo dadku ay xoolo dhaqatay yihiin xooluhuna waxyaabaha ugu weyn hadda aan dhoofina tahay laakiin waxaan isleeyahay sektorka aad iyo aad runtii waxyeeladu soo gaadhay waa sektorkii beeraha weey beeruhu waxay u baahan yihiin deganaansho u baahan yihiin deganaashahaasi siyaasad degan bay u baahan tahay amni bay u baahan tahay qofku waxa moogtahay inuu meeshan uu moogtay tabco tacabkiisaas inuu heli doono maxaa yeelay wuxuu beero muddo dheer buu sugayaa waa inuu moogtay 3 bilood 4 bilood 6 bilood haddii geed weyn tahayna dee muxuu ahaay sanado badan inuu markaasi sugay ayay u baahan tahay marka taasa waxay keenaysaa qofku inuu ku xisaabtamo inuu waxaan uu beerayo uu moogtay uu goosan doono ayay markaasi ay keenaysaa marka haddii ay taasi jiraan oo moogtay waxooga amnigii uu moogtay uu khalkhal galo dadku beeraha waa ka guurayaan markaas marka waxa noqonaysaa inay garab rarato wax degdeg oo ama bacamistar yar oo wax meel laga iibsho kadibna degdeg la iskaga gado ama hawl service oo gacanta laga qabto inay muxuu ahaay ictimaadaan baad yaa muxuu ahaay ku khasbaysaa nolosha marka waxaad moodaa duruufta jirtay muxuu ahaa amni ayaa in badan oo moogtay beeraleydii ama barakacayaal ay isu bedeleen ama ay moogtay wax soo saarkoogiiba oo moogtay aan waxba soo saari karin oo tabar iyo moogtay dawlad mid kale beeruhu waxay u baahan yihiin dawlad muxuu ahaa taageerta oo muxuu ahaay wax barta oo qalabkii ay haystaan lagu beeri lahaa haystaan oo qalabkii muxuu u amni galayo oo markaas waxa soo dhan bay u baahan tahay marka haddayna waxyaabahaas oo dhan aanay helaynin runtii dhibaato weyn bay muxuu ahaay ku dhacaysa muxuu ahaa runtii beeri taasaad moodaa in moogtay sektorkaas uu yahay sektorka runtii waxyeelada ugu badan ay muddadii burburkii ay soo gaadhay saasaa keentay markaa dadku inay dhinaca service-ka oo ama ha noqoto communication-ka oo hadda ku hadalku inaad telefoon meel dhigato ama aad moogtay mishiina meel dhigatahay oo satellite muxuu ahaa taagta ateenooyin taagtahay way ka muxuu ahaay secure badan tahay muxuu ahaay marka beer laga hadlayo midda kalena waxa weeye shaqo loo baahan yahay had iyo jeer oo dadkii xilliyada dagaalka iyo colaadaha way ka war badan yihiin xitaa xilliga muxuu ahaay nabadda iyo caadiga markii la yahay marka in la isla xiriiro aad garanaysaa barigu horeysay communication waxa ku bilowday in halo iyo moogtahay baalkii muxuu ahaay lagu socday taasa marka communication sector kaasino iyo dadku inay dhoofaan oo xaggii diyaaradaha muxuu ahaa la ictimaado waxaad moodaa xaggii baabuurta ee lagu soconay transportigii dadka ahaa ee lagu socon jiray ee muxuu ama basaska ahaa ee dadka qaadayay xitaa inuu moogtay waa ku yaraaday wadanka gudihiisa taasna waxa keentay muxuu ahaa amni darrada keenaysa in dadkii ay diyaarado ugu safraan oo diyaaradu noqoto shayga kale ta ugu securesan ee ay noqoto Muqdisho iyo Jowhar lagu kala tago Muqdisho iyo Baydhabo lagu tago Muqdisho iyo muxuu ahaay iyo muxuu ahaa beledweyne ama Kismaayo magaalooyinka waaweyn hadda imika muxuu ahaa inay magaalo yaro kastaaba ay airport samaysato si diyaarad loogu gaaro marka xitaa dhinacaas waxaad moodaa diyaaradaha waxa xoojiyay because waxaan jirin transportigii dhulka ahaa muxuu ahaay ummaddu gaadiidkii dadku isku soconay marka waxaan isleeyahay inkastoo de service-kaasi uu moogtahay uu muuqda
laakiin isaga laftiisu aad uma develop garoobinoo horumar weyn ma samaynin dhaqaalaheennuna waxaad moodaa inuu ama ganacsigaa yar ama muxuu ahaayey serviceka adeegaasi uu markaasi uu ku dhisay duruufahaasa waxaan isleeyahay dhammaantood ayaa keenaysa inay muxuu ahaay dhinacaasi uu xoogaa hor u kaco intaadnan ka bixin waxaa kaloo muhiima in la isweydiiyo kalluunka laftirkiisu ma amni darrada qayb ka saamaysa dabcan kalluunkana waxaa weeye amni darrada qayb ka saamaysay maxaa yeelay baddu waxay u baahan tahay runtii qalab bay u baahan tahay doonyay u baahan tahay maraakiib bay u baahan tahay haddaanay maraakiibtaas iyo doonyahaas iyo qalabka kalluumaysigaasi aanu muxuu ahaay safe ahayn oon amni helaynin iyada lafteeda cidina capital xoog loo badan raysamaal xoog leh ma gelin karto muxuu ahaay runtii badi marka amnigay taasi lafteeda ku xidhan tahay midda kalena markaad kalluunkii keentay inaad muxuu ahaa suuqyo waaweyn u hesho oo muxuu ahaayey lagu dalka gudihiisa lagu isticmaali karo inaad heshahay iyada lafteeduna waa u baahan tahay laakiin waxaan isleeyahay hadda imika waa soo raynaysaa mar hadduu amnigu soo noqonayo waxaanu la rajaynayaa inay muxuu ahaayey xaggiisa loo jeesto oo imika laftiisaba muxuu ahaayey shirkada inkastoo ajnabi u badan yihiin lagu siiyey inay muxuu ahaa ka kalluumaystaan xeebaha Soomaaliya qaybna waxa ka ahaa badcadbadeedii berigii ka dilaacday taasaa muxuu ahaayey weli moodaa dadku inay maskaxdooda ay ku sii jirto iyo aqoontii kalluumaysi lafteeda oo muxuu ahaa runtii aad u wiiqantay ayaa iyada lafteedu dib u dhac ku riday laakiin xeebteenu waa xeebta ugu hodansan xagga kalluumaysiga markii la eego aad u mahadsantahay Professor Bashir Sheikh Cabdulqaadir dalka markii loo eego waxa ka baxa oo ay dibadda u dhoofiyaan iyo waxa soo gala ayaa markaa waxa u maleynaya in la cabiri karo heerka dhaqaale waddanka Soomaaliya maanta horta wax ma dhoofiyaan tisal waxa lagu qiyaasaa wax soo saarka dalka in dibadda loo dhoofiyo runtii hadda wax la dhoofiyo aad u yar yahay xoolaha ka mid ah in yaro oo liintan la qalanjiyey iyo waxyaabo noocaas ah iyo hilibkii oo xoolaha markii la qalo shirkado yaryar oo private ay ku samaynayaan intaasna waa in individual ama shakhsi dadaal oo business asi uu samaysanayo oo dawlad wax ay taageerayso male horta waxaan rabnaa inaan kala saarno dhaqaalaha markaan ka hadlayna dhaqaale ummad oo dawladeed dhaqaale ummad oo dawladeed waxaa si toos ama si dadban u maareeya xukuumad shacabka ama private-ka sector-ka ah wuxuu samaystaa businesskiisa asiga shakhsiga u ah waxyaabaha uu samaynayana wuxuu ka raadiyaa profit faa'iido ka raadiyaa mashruuc aan faa'iido lahayn ma galo mashaariicda oo ummadda ay u baahan tahay korontadii biyihii caafimaadkii infrastructure-kii wadooyinkii iskuulaadkii waxaas kama qayb galo hadduu ka qayb galayana lacag uu ka dhigaa hadduu lacag laga dhigana ummadda kama wada faa'iidaysan karto marka meesha anaga waxa naga maqan waxaa waaye maalintii sida uu sheegay profesorka xildhibaanka dagaaladii markay dhaceen oo dawladdii meesha ka baxday waxaa ka baxay dhaqaalihii dawladda meesha ka baxay baahidii markaas soo istaagtay waxay ahayd baahi telecommunication iyo xawaalad dadkii qaxay oo dibadda aaday dadkoodii lacag si iskugu soo dirayeen sidee lacag ugu diri lahaayeen xawaaladii markay bilaabato waxay arkeen xawaaladii inay u baahan tahay telecommunication ama telefoonada markaa sii casriyoobayo 90kii adduunyada oo sii furfurmaayo ayay ku soo aaday markaa kambaniyaalka si fudud marka kambaniga waxaa keenay baahi mujtamaca tiilay baahida mujtamaca jirta laakiin waxaa sii xirxirmay sektorkii nolosha ku xirneed oo xoolihii iyo beerihii iyo kalluumaysigii iyo ay sii xirmay dagaalada darteeda way sii gabaabsi noqdeen oo colaadii iyo dawlad la'aantii iyo waxaa caqabad ay ku noqotay hadda Mareykanka iyo dawladaha horumaray iyo dawladaha dhan beeraha waa la kabaa laana ninka qofka beerta falanayo ama beeraleyga ah qarashka uu geliyo shidaalka iyo qarashka iyo xooga oo gala dalagii soo go'a suuqa haddii la geeyo ma soo celin karo sidaa darteeda adduunyada waxaa waaye dawladaha iyaga kaba marka sababta loo kabayna maxaa waaye waxay ka mid tahay qayb istaraatiiji oo security ah
anaga security waxaan u naqaanaa amniga siyaasadeed keliya ama policy laakiin al-amn al-ghidaa'i wax la yiraaho ama food security waay haddaan adiga cuntadaada haysanin oo cuntada lagu soo dhoofinayo meesha laga xaniyo qaban karo waay siyaasad marka ummad walba waxay ku dadaashaa cunadeeda daruuriga in ay soo saarato marka waa inay kabtaa sidoo kale xoolihii waa in la kabaa kalluumaysigii waa in la baneeyaa laakiin inaga maadaama sektoradaas dhan ay gadaal uga baahan yihiin mar la arko dowlad businesska xataa kuma soo dhiiradaan waa magalaan waa maasantahay waa u soo laaban doonaa qatra xildhibaankaan rabaa inaan su-aal muhiim weydiiyo dowladdu marar badan bay mudan xildhibaan shaacisay in dhaqaalaha dalka uu kordhay waxaan u malaynayaa toddobaadyo ka hor mar bay ahayd saasoo kale la yidhi hay-adaha dhaqaalaha la socdo ee Soomaaliya taageerana way sheegaan haddii dhaqaalaha dalka kordhay wax soo saar Soomaaliya in bulshada laga dareemo mise aragtaan adigu dhaqaalaha la sheegayo kordhay maadaama guddigii maaliyadda golaha shacabku jirto runtii waa run weyn in muxuu ahaay xukuumaddu tiraahdo dhaqaalaha waa kordhay laakiin waxa kordhay muxuu yahay waxa kordhay waa waxa weeye miisaaniyadda kharashka dawladda laga bixiyo ayaa kordhay ama cashuurtii soo urureysay ayaa kordhay ama deeqihii ay dawladuhu ku siinayeen ayaa muxuu ahaay kordhiyay marka numberka kordhay baa iyadna muhiima moogta halkay ka kordhay intee bayse ku kordhay saad la socotaan in miisaaniyad la sameeyay waxay bilaabantay 2013 hortay dalku muxuu ahaa burbur iyo jahawareer buu iskaga jiray aan miisaaniyadna lahayn marka miisaaniyadii ugu horeeyay 100 iyo muxuu ahaa wax la jira ayay muxuu ahaa ay ku bilaabantay milyan oo dollar kuwii ku xigay waxay moogtay ku xigtay muxuu ahaa 140 kadibna haddana waxay gaadhay muxuu ahaa ilaa 160 xilligii ay timiday muxuu ahaa 2017 waxay gaadhay muxuu ahaa 170 marka waxaad garanaysaa miisaaniyadda dakhliga ee soo xiroonaysa ee xukuumadda u soo xiroonaysa macnaha korodhka ku dhacaya haddaad tiraahdo mesela 10 milyan baa ay korodhay sanadkan de 10 milyan waxa waxay ka tahay oo moogtay weyn oo miisaaniyada ay ka tahay maysan jirto miisaaniyadii 2016 marka macadeeqa la isku daro 240 milyan bay ahayd tii ka horeysay saas oo kale muxuu ahaayay 200 waxa tii ka dambeysay waxa 260 milyan bay ahayd 2018 290 milyan bay ahayd sanadkan hadda muxuu ahaa 2019 340 milyan weey inteeba muxuu ahaa aan ka leenahay oo Soomaali dakhligeeda ka soo ururisay inteeba muxuu ahaa caalamku inagu taageeray idna waa mid taagan weey hadda deeqaha inoo yimiday 2019 150 milyan baa leeyahay deeqaha moogtahay soo mara dalka soo mara xisaabteena ku soo dhaca inta miisaaniyadda soo gashay 190 milyanna waxa weeye waxa dakhliga soo xirooday buu dadweynaha markii hore wuxuu ka yimid 170 haddana wuxuu gaadhay 190 dadweynaha 20 milyan baa markaasi ku korodhay marka korodhkaasi wax weyn oo hadda macno weyn u sameynaya dhaqaale dal ma aha moogtay mar haddaanay ku filayn inay bixiso mishaarkii muxuu ahaa dadka inay bixiso ama adeegii muxuu ahaa xafiisyada inay bixiso oo wasaaradaha majority in badan oo kamid ay running costigii xafiiska waxyaabay kharashaadka ay ku bixin lahaayeen aysan muxuu ahaa heli karayn oo baarlamaankii aanu muxuu ahaa heli karayn waxyaabihii kharashaadka ku socodsiin lahaa hawl maalmeedkiisa ku socodsiin lahaa 10 milyan baa noo kordhay ama 20 milyan baa noo kordhay wax weyn oo ku soo kordhinayso haba yaraatee ma jirto 150 milyan oo deeq oo lagu siiyayna oo laga yaabaa marka sanadka dhamaadkiisa inuu 100na ku soo xiroodo 50na uu ka baaqdo oo lagu muxuu ahaa lagu siin waayo iyada lafteedu dhaqaale weyn oo ku soo kordhinaysa malaha waxaan xasuustaa muxuu ahaa 2015 deeqaha moogtay dawladaha laga rajeynay waxay ahayd 90 milyan bay ahayd 90 milyan waxa soo xirootay wax 50 milyan ka yar Soomaan garan wax nus ka yar nus wax ka yar baa soo xirooday nusna waa la waayay taasna waxaad ka garan kartaa 15 iyo 16 markii deeqihii dawladaha laga filayay la waayay
inay muxuu la bixin kari waayo mishaarkii la bixin kari waayo marka maanta haddii la yiraahdo muxuu ahaa deeqihii way soo gaari waayeen wax badan oo adeegii ama mishaarkii dadka ayaa la waayay oo dhacaya marka kororka la sheegayay wax in la boonboonin u baahan maaha waa moogtay waa shay aad u yar oo moogtay ku kordhay waxay ahayd inay wax dalka ka soo kabanaya muxuu ahaay dagaalada sokeeye ka soo kabanaya waxay ahayd inay moogtay percentage-ka kordhaya ay aad u sareeyo oo cashuurta dalka la wada gaaro oo muxuu ahaayay kordhiyo qawaaniintii lagu qaadi lahaa oo dekedaha la wada gaaro oo markaas ay noqoto cashuurta dalkan ka soo xirootaay 1 bilyan 2 bilyan ay noqoto taasaa muxuu noqon lahayd faa'iido weyn oo soo korodhay oo adeeg badan oo bixin karta shaqaale badan samayn karta waxa kale oo iyadna muhiim ah in muddada hadda imka 2 sano iyo barba imka muxuu ahaayay hadda imka intii xukuumadda cusub ay timid ay tahay inaanan shaqaale la qaatay jirin haba yaraatee oo xukuumaddu wali ay ka adkaan kari laadahay inay muxuu ahaayay mishaarkii intii shaqaynaysay bixiso ama adeegii iyo muxuu ahaa kharashaadkii intii muxuu ahaayay hore u joogtay muxuu ahaayay institutions ama hay'adaha dawladeed jiray inay kharashaadkeedii bixiso marka uma muuqato deenda nolosha dadkaanad ka garan kartaa muxuu ahaayay inaanay muxuu ahaayay koror badan oo la sheegi karay aanu meeshaasi ka jirin aad u mahadsantahay dadweynaha ayaan siin doonaa waqti badan maanta oo ay xubnaha wax ku weydiiyaan martida Qatra Cabdullaahi Xasan dalkan waxa ugu weynay maanta dhaqaale ku tirsan waxa la sheegay inay tahay ganacsiga ama shakhsiyaadka ganacsatada ah waxa ay sameystaan oo ay faa'iido ku raadinayaan maxaa diiday in ganacsatadu ay maal gashadaan beeraha oo ay maal gashadaan xoolaha iyo kalluunka oo ku soo koobay service-kan kale ama adeegkan kale caadiga ee dibadda laga keeno aragtideeda markii aan ka hadlo horta waxaa jira siyaasad loogu talagalay beeraha dhanka beeraha ah siyaasadaas oo ah dadka beeraleyda ah markii ay beeraha ay tabcaan hadda Agoosto waxaan isku soo maray shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose anigoo waliba soo kormeerayay beeraha dhanka beeraha dalagga wax soo saarka ah waxa jirta policy oo kaga aadan dhanka beeraha ah wax soo saarka dawladdu ay leedahay markii dadka beeraleyda ah markii beeraha tacbaan oo kale waxaan ku imaanayo kale cayaano ama waxyaabo ay ka cabanayaan jiraan waxyaabahaas ay ka cabanayaan waxa loo baahan yahay dawladdu in ay ka haqabtiri karto ama policy ugu aadan ay leedahay ay ka daaweyn karto kana buufi karto cayaanadaasi daadadka ama fatahaada ayadoo kalena inay policy ay ka leedahay dawladdu ay ka caawin karto dadka beeraleyda ah caqabada dhanka kaga imaanaya fatahaadaha haddii aysan haysanin dadkii agabkii loogu talagalay beeraha sida kanaaladii iyo matooradii oo kale daaweyntii dhirtii oo kale haddii aysan haysanin qof maanta hantidiisa ku beer dareenaya ma jirto waayo dadkii beeraha abuuranaya waxay garan laayihiin inkay cayayaankii beeraha galayay oo dalagii la beeray xataa galayay way garan laayihiin waxay kale awood u laayihiin in ay iska biyo moosaan ama ay tabar u helaan daadadka ama fatahaadaha imaanaya ay tabar u laayihiin dawladuna ma jirto ka garab qaadasho ama garab istaagid ay dadkaas ay garab istaagayso waxaa dhici karta marka dadka ganacsatada ah dhaqaalahooda marka ay geliyaan haddii ay fatahaad ay imaato meeshaas ayay ku baaba'ayaan hantidii la geliyay qof walba marka waxay la cabsanaysaa wix yarka ay haysatay in ay inta geliso hadana qasaaro uu ka imaado ama bahal uu ka cuno bahalkina daawo aan loo heenin daasoo marka ay dadka ganacsatada ugu bareeri laayihiin ee qof walba Soomaaliya wuxuu jecel yahay inuu dalkiisa maalgeliyo si horumar loo gaaro aad u mahadsantahay Professor Bashiir ganacsatadu hadda adeegyadan kala maalgeliyay ganacsatada Soomaalida adeegyadan aan beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha ahayn maal gashaday waana ku khasaara waana ku faa'iido waxa laga yaabaa inta soo milyan marka ku ranta inuu qos maxaa diiday inay maal gashadaan beero iyagoo aan dawladdu waxa uga baahnay haddaba ileen ganacsigooda gaarka way wataan iyadoo aan dawladii maalgelin iyo garab gaar ah siin waxba ka taageerin businesska oo beeraha sidaan hore u sheegay waxa waaye kostiga galay sida caadiga iyo maadaama waxaan u yahay cunno magalayso for example haddii ayaga miro ay tacbaan waa laga yaabaa inuu isbixiyo laakiin miro markuu tacbo qofkii ummadii waxba uma tarayso sida darteed dawladii kacaanka siyaasad ayay ka lahayd siyaasadaas oo ah qofkii wuxuu lahaa 60 hektar
inuu isticmaali karo 50 hektar waxay goysaa wax la yiraaho azenda wax la yiraaho ay u yaqaaniin Talyaaniga oo ah beer weyn oo ka soo baxda miraha marka qof la arko 50 hektar oo miro ku tacba waxaa looga baahnaa 10 hektar oo dalag inuu tacbo xilli walba haday sisin tahay haday galey tahay oo ku qasbanaa si cuntada wadanka sidoo kale dawladdu waxay sameynaysaa mashaariic waaweyn hadda Jowhar Bariis lagu tijaabay aad u guuleystay sidoo kale Mogambo jamaama meesha tilib inta u dhaxayso lagu tijaabiyay beero waxaa jirtay 1,000 hektar mashruuc ah ayaa la sameeyay oo bariiska wadanka in laga soo saaro marka beeraha ma ahan wax ay private-ka kaligooda ay aadayaan ama awood u leeyaan beertu waxay u baahan tahay aqoon cilmigii lama hayo waxay u baahan tahay qalab oo aad u waaweyn sadarteeda qalabka beeraha iyo daawooyinka beeraha iyo waxa la mid ah dhammaan dawladda waxay ahayd canshuur dhaafi ah canshuur laga ma qaadi jirin xoolaha iyo marka eegtin xoolaha waa ka fudud yihiin marka fiirisid oo dada dhaqdo waxay u baahan tahay dawladda in maxjar loo sameeyo sidaan ka warqabno 1981kii xoolaha ama dadkii hore ay ka warqabaan 1981kii waxaa la joojiyay xoolaha wadanka sidaa darteeda mashruuc waxaa la aasaasay oo la yiraaho mashruuca suuqgeynta xoolaha oo USAID iyo Sacuudiga ay ka taageereen dawladda si xoolaha dawladda dib loo ido dawlad jirta waay oo siyaasad jirto oo cilaaqaad leh oo dawlad xoog badan ay waagaa 80kii marka waxaa la sameeyay mashruuc suuqgeynta xoolaha meesha hadda Sarkuus la yiraahdo agteeda dhismo weyn ku yaalo oo iska lahaan jirtay ayada loo dhisay mashruuca suuqgeynta xoolaha wuxuu ka shaqeeyay maxjaro inuu ka sameeyo Barbara Kismaayo Muqdisho iyo dekedaha laga dhoofinayo xoolaha oo la keeno khubaro iyo dhaqaatiir xoolaha iyo qalab iyo laab dadka xoolaha dhoofinaya hadii intaas helin xoolaha ma dhoofi karaan ayaga waa dawladda u baahan marka beeraha kalluunka iyo xoolaha waxay u baahan tahay dawlad oo siyaasad kale effective ah oo taageerta waa baahantahay daawadeeshan sii doonaa waxaan rabaa laakiin su'aalan waxaan weydiinayaa xildhibaan Dr. Cilmi ma moodaa hadda inay wajahayaan ganacsatada Soomaalidu khatar culus oo iyagii dalkiina ku tiirsan yahay sababtoo waxaa la sheegaa inay laba meel canshuur ku bixiyaan shabaabna waxaa yiraahdaa canshuur ay ka qaadataan dawladana waxaa yiraahdaa canshuur ay ka qaadataa amni dalka kama jireen meelo kalena waxaa laga yaabaa inay cost ama lacag qarash uga baxo halkii il dhaqaale ee lagu tiirsanaa hadii uu service-ka gaarka ahaa ma ku muuqdaa in waqtiga isagana culays xoog leh ay wajahayaan warun shaki kuma jiro inay ganacsatada Soomaaliyeed runtii wajahayaan dhibaatooyin aad u fara badan midda koowaad waxa weeye ma jiro wax dhiirigelina oo haba yaraatee muxuu ahaa uga imanaysa ama xaq xukuumadda ama cid kale oo taageeraysa ma aysan jirto malaha infrastructure-kii waxyaabihii fududeynayay inay ganacsigooda ay moogtahay ay ku sameeyaan oo muxuu ahaa maajidad noqon lahaa ama muxuu ahaayay fududeyn kaleba muxuu ahaayay noqon lahayd muxuu ahaa ma ha noqoto xitaa electricii ha noqoto powerkii ha noqoto jidadkii ha noqoto bina waxyaabahaas oo dhan oo waxyaabaha xitaa biyihii lafteeda ha noqoto waxyaabahaas oo waxyaabaha fududeynaya inay moogtahay waxyaabaha dhaqaaluhu ay kobcaan weeye marka horta taasi waa mid jirta weeye midda taasi ka sidana waxa weeye xaggii amniga oo runtii iyagana ay mushkilad weyn ay jirto oo dalkii aanay moogtay intay ama ku ganacsan karaan ama wax ka soo saari karaan uu xadidan yahay ama uu kala xidhan yahay baa noqotay midda saddexaadna waxa weeye iyadoo ay xoojinayso muxuu ahay xukuumaddu cashuur qaadista iyo nidaamka cashuur qaadisteed aad iyo aad runtii dardar xoog leh ay gelinayso ayaa haddana dhinaca kalena waxa socda dardar xoog leh oo markii ugu horeysay inay muxuu ahay runtii ay si cad u soo baxdo inay muxuu ahaayay laga qaado ganacsatada laba cashuurood maalin dhaweyd daraasaad laga sameeyay ama muxuu ahaayay warbixin laga dhiibay dadka qaarkood ay dhiibayeen waxay ku sheegeen in cashuur ka badan cashuurta xukuumaddu qaado ama miisaaniyad ka badan muxuu ahaayay miisaaniyadda cashuur ahaan xukuumadda u soo xeroota in ka badan in muxuu ahaayay ay meelo kale ku xeroodaan markaas taasi macnaha waxay ku noqonaysaa runtii culays aad u weyn oo runtii haysta muxuu ahaayay ganacsatada haysata wey marka shaki kuma jiro inay taasi culays weyn si abuurayso
waxaa kaloo iyadna moogtay runtii dhiba inay sii kala xidhxidhmayaan jidadkii iyo xilliyadii la ganacsanayay iyo muxuu ahaayey duruufihii lagu moogtay ganacsanayayba inay moodo inay aad u sii adkaanayaan marba marka ka dambaysa taasina waxay keeni doontaa in cashuurta u soo xeroota xukuumadda ay markaasi ay aad u sii ay yaraan doonto oo aanay muuqanin qaab ay u sii muxuu ahaayey kobci doontahay aysan muuqanin marka arrimahaasi waa arrimaha ku ah runtii caqabadaha ku ah waxaa koo iyadna caqabad ku ah inaanay isla shaqayntii dowlad goboleedyada ama xukuumaddii muxuu ahaayey Soomaaliya guud ahaan isla shaqayntoodii ay sii daciifayso taasina ay moogtay keenayso kala qoqobnaan fara badan oo markaasi ku dhacda ee dalka ku dhacda inay muxuu ahaayey lafteedu ay sii wiiqi karto dhaqaalaha iyo kobiciisii muxuu ahaayey uu samayn lahaa aad u mahadsantaa markan waxaan siinayaa daawadayaashan siinayaa waxaana idinka codsanayaa sharaxaad dheer iyo tilmaamo dheer intaad geli lahayd inaad soo koobtaan si waqti aan uga wada faa'iidaysano oo aad muhiimad u gashid su'aashaada مسؤولينتنا waxaan ka codsanaynaa ayagana inay nood gareystaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Jaamac dhamaan waxaan aad u salaamayaa martisada dalkan joogta iyo macadka Sawdoon oo soo qabanqaabay barnaamijkani run ahaantii aad aan ugu faraxsanahay in aan maantayto aan soo bandhigno dood ku saabsan dhaqaalaha dalka horta marka koowaad waxa soo bandhigana waxa la rabaa inaan su'aalo isweydiino oo la yiraahdo caqabadaha dalka ka jira oo dhanka dhaqaalaha maxay yihiin kadibna aan su'aalahaas aan si cilmi baaris aan soo bandhigno shakhsiyan aniga waxaan dareensanahay gaab fara badan inuu jiro oo dhanka dhaqaalaha ah kaas oo dal aan dhaqaalaha lahayn sidii la rabaa laga yeeli karaa oo dalka mar hadduu dhaqaale lahayn yacni cid kasta u tali karta marka aniga waxaan aaminsanahay in sidii dhaqaalaha dalka loo horumarin lahaa inaan ka wada shaqeyno markastana aan eegno dhanka dhaqaalaha shakhsiyan aniga mar aan daraasad sameynayay waxa ku jirtay su'aalahayga ahayd marka tan maqaayad soo gashid dalka ku jira aad cuntid يعني واحد كشقي سي بيره قف كبيرت سو بيري آيات وشقي سي حتى تم قاعد جيد عاد عنتد ذلك دود لكن واحد كشقي سي ذلك سي عنتيزا كشقي سي حق عاف مادي حق تور انت ذلك سوق ايا سؤال شو نعمل ايا مهمسن مركز سؤال ودينا هي حلبانك وايا حلبان حد يجر واحد كسؤال على لسان دقالها ذلك marna kor u kacay marna hoos u dhacay shaqsiyan hadda saan ka dhibinayay marka meel iska qabasii maadaama in badan aad ku soo jirtay dawladda oo ilaa dawladii Xasan Sheekh aad kamid ahayd xildhibaanada aad kamid ahayd mar inaad tiraadaan dhaqaalihii dalka hoos u dhacay marna kor u kacay aad tiraadaan maxaa kaga qorshaysan dhaqaalaha dalka xilli kasta waxaad tiraadaan dhaqaalaha dalka ma yaalo wax qorshe iyo wax baleena bay kaga degsan yahay dawlad kasta oo dalkan soo marta ama ka tag soo marta ayada wax baleena aan lahayn dhanka dhaqaalaha ayay ka tagtaa waa maasanta su'aasha saddexaad ku weydiinaya hadii jeer dan ma inta inaan mushaarkiina ka qaataan dawladda sheeya ayada dalka uu dhooman yahay maskax dalkiisa lagu soo saarto يعني maxaa u keen lahayn waxaan booliska dhaqaalaha dejiya waa dawlad waa ku fahmay dad kala fursad aan siino su'aasha fursad aan siino markaan ku soo laaban doonaa saddex su'aal waxa way aad inoogu dheertaa marka gabadha u dhib soona koob su'aalaha tirada badanna fursad aan helin kale bismillaah horta awalan waxaan salaamayaa marti sharafta dhammaan dadweynaha ka soo qayb galay wariyaha barnaamijka daadiinay مرة سؤال إن كفوا هذا حرام ولا سؤال بس إن أنا يعني فيديو حلوان كي قدري مسؤول كله إن هرت بيرلي إذا مركي وحصو صارت أما أي واحد بيرتو ده اللي صاب حان أما دورته تاكلس أما إيجا اسمال قليان أنت بدل إن لكنا معاونة كنا هايده سيدا ودقناه كهربا كينان انت dadka cagabar ku dhimanaya ma baahan yihiin inta badan waxay ku soo beegaan xilliga dalag uu soo go'o oo rabo dadka inay dalgooda gaarsiiyaan dalka ama soo bandhigaan ma jirtaa dawladda qorshe uga degan inay yani xakameeso hay'adahaas oo NGO-yada keenayo waxyaabaha aan xataa dalka faa'iido u leeyahay cagaar iyo wax la mid ah su'aasha labaad oo qabo
oo raacsanayn waxa waaye in sida wada ognahay dhaqaalaha Soomaaliya inta badan waxa waa import ma lahan export dadka wax ay dhoofiyaan oo ha inta badan waa la soo dhoofiyaa sababta keeni karta maxaa waaye in anaga wax noo import not export aan dhoofin karin waxba aan yani wadamada kale ka iibsan karin anaga bas leen oo lagu soo iibgeeyay waa ma santahay waana inay aad loogu dheeraadana warjeenay sharxaad laga bixiyo wiilka dib aan soo laaban doona wiilka ay soo koofadla bismillaahir rahmaanir rahiim waa ma santihiin magacayga waa Abdi Malik dhowr su'aalan qabaa laakiin inaan warka badiyo ma rabo waa soo koobayaa su'aalaha ugu horeeya waxay ku wajahan yihiin xildhibaanka ku marka ugu horeysa ma jirtaa meel laga baaro daatada dhaqaalaha wadanka markaan aniga inta badan raadiyo waxaan arkaa IMF-ta iyo World Bank iyo CIA waxay qoreen laakiin macluumo oo daakhili ah ama gudaha local ah oo la raadi kara la heli karaa ma jirtaa meel laga baari karo dhaqaalaha wadanka tan labaad dabcan xildhibaanka soo xildhibaan haddana wuxuu ka tirsan yahay guddiga maaliyadda marka guddigaasaan mar waxaan ugu dambeysay ayagoo wax riboodii wax soo saaray oo corruption-ka ama musuqmaasuqa ka hadlay oo haddana mar la waa la diray lahay oo haddana waa la soo celiyay lahay oo haddana marka corruption-kana waxaa la sheegaa inuu aad ugu badan yahay wadanka gaar ahaan public sector-ka marka ma ka gaabiyeen maadaama mar la qabsaday ma aamuseen oo macnaha iska dhaafeen dabagalkii musuqmaasuqa mise wax la taaban karo noo sheegayaana jira su'aasha kale waxay ku wajahan tahay isla xildhibaanka su'aasha saddexaad dabcan sida la sheegay wadanka dhaqaalihiisa ganacsato ayaa hadda maareysa ama haysa ganacsatadana caqabado badan ayaa soo wajahaya marka canshuur aad u adagna waa laga qaadaa iyo lacag kale oo lagu sheegay qaarkood qaaraan iyo waxyaabo noocaas ah marka wax protection ah oo dawladda ugu qorsheysan ganacsatada inay u sameeyso ma jiraan haddii noqon lahayd xadgudub gudaha uga yimaada ama dad la dilo ama dad xoolahooda la dhaco iyo xadgudub dibadda ama wadamada dariska ka yimaada ha difaac su'aasha ugu dambaysa barofkan rabaa inaan weydiiyo dabcan waxaa la yiraahdaa 2018kii iyo wixii ka horreeyay dhaqaalaha kor u socday 2019kii hadda sanadkan la joogo inuu hoos u dhac jiro oo markii hore ay ahayd 3 iyo wax ka badan 3.1 iyo wax ka badan ay ahayd 2019 ay tahay 2.9 meelahaas ayaan arkay meel ku qoran tahay marka hoos u dhacaas maxaa keenay waa intaas jawaabahan galina markaan dib aan ugu soo laaban doonaa wixii kale su'aalo ah badanana su'aalaha waxay muuqataa inay quseeyaan xildhibaanku inta kalena fursad waan siin doonaa xildhibaan doctor adoo soo koobay runtii su'aalaha aad u badan yihiin waxaan maleynayaa mid waliba gaarkeed bay u baahan tahay in lecture laga bixiyo anigoo soo koobaya waxaa muhiim ah horta in la isticmaalo sida wiilkaas ka dhawaajiyay muxuu ahaayay waxa ka soo baxa dalkeena marka waxa dalka ka soo baxa isticmaalayso ama xagga cuntada ha noqoto tusaale ahaan waxa weeye horta number 1 caafimaad baa ku jira number 2 dhaqaalaha gibad kobcinaysaa beeraleydii baad kobcinaysaa muxuu ahaayay adigana waxaad cunaysaa cunto aad hubto muxuu ahaayay inay naahayn mid daawooyin iyo wax moogtay la soo preserve gareeyay ama muxuu ahaayay la soo kaydiyay marka cuntooyinka badana waxa jira moogtaadi jir waa la moogtay waxa jira moogtay genetically modified food baa jira cuntooyin la soo dhalan rogay baa jira marka cuntooyinkaasi inaga badana hadaynu moogtay wadankeena iskaga beerano waxaan u maleynayaa inaynu kaga badbaadin lahayn waxyaabo fara badan oo cudurra dhaqaalaha dalkeena aan kobcin lahayn wax kastood iibsanayso markaad iibsanayso waxaad kobcinaysaa cidii soo saartay dhaqaalaheega ayaad kobcinaysaa ha noqoto muxuu ahaayay electronicska ha noqoto ama dhar ha noqoto ama cunto ha noqoto shayga aad iibsanayso waxaad ku deeqday inaa muxuu ahaa kobco dhaqaalaha cidii soo saartay markaad muxuu ahaayay dhaqaalaha dalkaaga isticmaalayso wax soo saarkiisa waxaad kobcinaysaa dhaqaalaha dalkaaga taas waa arrin muhiim ah weyn marka ma jiraan qorshayaal dabcan xukuumaddu mar waxay isku dayday inay guddi dhaqaalo oo qorsheeya arrimaha dhaqaalaha ma kala taliya sameeyo laakiin waxaad moodaa inaanay sidii loogu talagalay aanay u shaqaynayn duruufaha adagoo ka hor yimiday darteedba marka in muxuu ahaayay niman khubaro waaweyn oo qaarkood muxuu ahaa ka mid noqday muxuu ahaa ra'iisul wasaariha hadda iminka muxuu ahaa Suudaan uu ka mid ahaa ayaa markaasi la sameeyay ilaa muxuu ahaa rag runtii aad iyo aad odayaalka arrimaha dhaqaalaha laakiin waxaad moodaa inaanay sidii loogu talin looga faa'iideysanayn iyagiina aan la dardargelin facility-gii iyo waxay u baahnaayeen aan runtii muxuu ahaa runtii ay gabaabsi ay ku yihiin marka waa jirtaa isu daygaasi wasaaradda qorsheynta qorshay leedahay oo muxuu ahaa qorshihii muxuu ahaayay
sagaalaad oo hadda ay soo bandhigtay waxaan rajaynaynaa bal isaguna inuu muxuu ahaay uu taaba galo ayuun baanu rajaynaynaa marka waxaa kaloo iyadna gabadho weydiisa xagga exportiga importiga dabcan waxaa la yidhaahdaa boqolkiiba 90 waxa dalka lagu isticmaalo waa imported way ama in ka badan dhaqaalaheena boqolkiiba marka la yiraahdo intee bay isku yihiin reeshiyaha waxaanu dhoofinay iyo waxaanu muxuu ahaay soo gadanahay waxay isku yihiin 9 iyo 1 ay markaas yihiin 9 shay baa dibadda ka keensataa hal shay baa dhoofisaa waa xoolaha iyo wax la halmaale way marka maxay noqonaysaa marka su-aasha iman doontaa waxay noqonaysaa dependency imported dependency baa ku dhacay dalku inuu markaasi ku xiran yahay muxuu ahaay dhaqaale dibadeed inuu ku xiran yahay xageed ka keenaysaa waxaad ku iibsanaysaa ay maraysa waxa laga yaabaa waxayna taakulinaya inay tahay xogaa remittance ama xawaaladaha dibadda ka imanaya ee dadkeena dibadda soo dirayaan baa laga yaabaa inay wax kaabayaan laakiin haddayna taasi jiri lahayn dhibaato weyn bay noqon lahayd waxaan iibina ma heleen macluulna moogtay halkan inuu ugu sii dhiman lahay marka horta dhibaatadaas waa jirtaa waa inuu dalkeena muxuu ahaayey ka samaynaa in muxuu ahaayey waxaynu dhoofinay iyo waxaynu isticmaalnaba intaba aynu ka dhignaa wuxuu wiilkii u dambeeyey maalig wuxuu weydiiyey dalka ama laga helayaa data iyo information dhaqaalaha ku saabsan waa run waxyaabaha ugu gabaabsi aadka u yar bay ka mid tahay waxaa soo saara sanadkii annual report World Bank soo saara muxuu ahaay dhowr jeer baanan shirarkan hadda imika marka laga hadlayo reportka aan ka hadalnay waa inay wasaaradda maaliyaduna soo saartaa waa inay wasaaradda qorsheyntu soo saartaa waa inuu bangiga dhexe soo saaraa waa inay hay'adaha maaliyadeed reportyo kala duwan oo dhaqaalaha ku saabsan soo saaraan waxaan rajaynaynaa in muxuu ahaay la helo statistics hadda imika sharciga statisticsku wuxuu hor yaalaa baarlamaanka marka waxaan rajaynayaa in moogta la sameeyo survey fara badan iyo daraasad badan iyo GDP-da dalka dhaqaalihiisa guud ahaan in muxuu ahaay runtii la helo waxyaabaha la iska rabayna ka mid tahay hadda SMB-ga iyo muxuu ahaay benchmarkiska u abay ka mid tahay su'aal weydiyo arrimaha guddiga maaliyadda oo bari waxoogaa qayladiisa la maqlay laakiin bariyahan muxuu ahaay aamusnaani ka soo hadhay maxaa ku dambeeyay ma corruption-kii baa laga baxay mise guddigii baa shaqadiisii gabay waxa laga yaabaa inay runtii ay tahay muxuu ahaayey waa suuragal guddigu haddii moogtahay waxyaabaha transparency-ga dadku ma jecla xukuumaduhuna ma jecla accountability-ga ma jecla markii lala xisaabtamo waad garan kartaa runtii qayladu meesha isku shareerayso marka guddiga waa shaqeeyaa inkastoo muxuu ahaayey wax badan ay iska bedeleen laakiin haddana mushkiladdu waxa weeye intee bay moogtahay la ogol yahay in lala xisaabtamo oo xukuumadda lala xisaabtamo oo muxuu hay'adaha maaliyadeed lala xisaabtamo oo muxuu ahaayey la ilaaliyo runtii muxuu ahaayey corruption-ka la ilaaliyo runtii arrintaasi waa arrin hawsheedu aad iyo aad ay u adag tahay weli intaa hadda iminka 2 sano iyo barhka xisaab xidhaba lama samaynin oo muxuu ahaayey xisaab xidhadii maaliyadeed ee dalka lama sameyn oo 2 sano xisaab xidhkoogii waa isdul yaalla waxaan had iyo jeer muxuu ahaayey laga hadlayaa inuu xafiiska antidhowrku si xoog leh u shaqeeyo oo ku shaqeeyo sharci beri dhaweyd sharcigiisa isaga laftiisa aad baa loo muxuu ahaayey loo muxuu ahaayey wiiqay oo moogtay doorkii looga baahnaa waxaa laga yaabaa inuu sharci ahaan aan u dhisnayn waana soo saareen guddiga la yidhaahdo FGC guddiga maamulka maaliyadeed oo la shaqeeya xukuumadda inay muxuu ahaayey sharcigaasi uu markaasi waxoogaa uu aad u dambeeyo waayo waxaad maqlayseen had iyo jeer hanti dhowraha oo warbixin soo saaray riboodyo soo saaray cid muxuu ahaa lagu dabagalay guddigii maaliyadda oo weydiinaya marka arrimahaas waxaad moodaa baryahan inay aad u sii daciifeen su-aaltii waxbaa iiga hadhay oo ah muxuu ahaayey caqabadaha ganacsatada hortaagan iyo xukuumaddu protection ma siisaa runtii arrintaasi ida lafteedu waa challengeska jiray ka mid tahay waxyaabaha u baahan in oo de amniga guud bay ku xidhan tahay inkastoo muxuu ahaayey ay had iyo jeer xukuumaddu dadaal ay tiraahdo dadaal fara badan baanu ku bixina laakiin haddana waxaad moodaa in aad iyo aad u dhibto iyo caqabado weyn ay ku tahay markii hore aad uga hadashay mawduucaas intaan barnaamijka u guda jirnay su-aasha igu wajahan haddaan u soo baxo oo ah 2018 kor ayuu u socday dhaqaalaha 2019 hoose ayuu u dhacayaa waxaa ila tahay aniga shakhsiyan ma aaminsani waxyaabaha riboorada la soo qoraayo inay yihiin riboor oo academic ah oo cilmi baxti ku salaysan waa riboor iska siyaasadeed
inkastoo xildhibaanka iskala lahaada waxaa riboortka siyaasadeed waxaan u jeedaa xataa caalamka oo la taageeraya lacagta bixinaya dadka markaa involvedka ku ah soomaaliya taageerteeda wakiilada inta fadhiyo iyo kuwa la mid ah hudhooda faa'iido ayay ku qabaan in la yidhaahdo soomaaliya dhaqaalaheedu waa soconaya sababtoo ah shaqaday qabteen ayaa waxay noqonaya markay ugu yar tahay mid sax ah marka waxaa la sameynayaa fabrikeeda la sameynayaa waxyaabo badan oo aan isku khilaafsanahay sidii loo dhaqaalay marka GDP-ga siday u xisaabiyaan oo dhaqaalaha aan u jeedno sektaro badan inay xiran yihiin dhaqaalaha aan u jeedno iyadoon lahayn maxaa la dhahaa waa waxa la dhoofiyo dhaqaalaha aan u jeedno shilinkeeni inuu marayo meeshii ugu hooseysay intaasoo dhan in la yidhaaho dhaqaalihii waa kordhayaa waxaa waaye hadalkaa la leeyahay mogiye in dib loo xisaabtami karo wax lagu kalsoonaan karo macluumaad aad loogu kalsoonaan karo ilama aha marka productionka serviceka iyo goodiska aan sameyno internal iyo externalka ma arkino productionka aan ku sameyno warshado gudaha ma noo jiraan dibadda shaqa wax ma nooga imaado remittancegaas dibadda nooga imaada dhaqaalaheena dhan ku salaysan yahay waaya lacag ku salaysan 2 milyaar oo dollar ayaa dibadda nooga imaato dhaqaalaheena taas ku salaysan marka waxaan isleeyahay taas iyo intii yaroo gudaha oo dhaqdhaqaaqa yar ah in la isku daro ayaa la fiiriyaa maxaa ku soo kordhay remittancega waxba ku soo kordhi kara sanadkan haddii oo 2 milyaar la soo kordhiyay oo exact ah sanadanba 2 milyaar iyo 100 milyan waa la soo kordhiyay markee maanta qof 500 bixiyo biri kunoo bixina oo soo diraya marka meelahaas wax isbedel waa ka imaan karaa hoos u dhacna waa ka imaan karaa laakiin aniga hadda dhaqaale isku toosan oo maanta Soomaaliya la dhigi karo sicir bararkii waa laga saaray base ay leedahay ilaa hadda anaga professorkana waa ogyahay sanadka aasaaska base yearkeena oo dhaqaalaha lagu saleeyo oo sicir bararka looga saaro ma naqaano reportkan markuu ku soo qorayo kuma sheegay GDP-gan base yearku ka soo qaaday sicir bararka muxuu ahay iyo sicir bararka maanta joogo base yearka marka xogaa idin sharaxa loo jeedaa doctor waa maasantahay okay waa maasantahay waxaan rabaa hadaynan su'aal jirin waqtigan uu nahayaa xilliga salaada la galay soo koob fadlan wiilkan xaraam microphone siisan iyo wiilka xageeya labadiina min hal su'aal aan fursad idin siinayna idinku soo koobaya waqtiga aad soo koobaya magacayga Axmed Aadan Xasan waaye waa idin salaam dhamaantiin waqtiga yar laba su'aal oo gaaban ah wataa midna xildhibaankan weydiinaya midna qataraan rabaa inaan weydiiyo mid xildhibaanka dan ku hormaro waa ognahay in dhaqaalaha la sameeyo wuxuu u baahan yahay dawladdu waxay u baahan tahay lacag badan inay ku fangareyso lacagtuna waxay ku xiran tahay in dadka laga soo qaado canshuur la qaado canshuurta systemka loo qaadi lahaa wasaaradda maaliyadda mas'uulka wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maamul goboleedyada ilaa haddana siyaasad midaysan ma aysan gaarin marka ma dhihi karnaa inta caqabada siyaasadda ay taagan tahay dhaqaalahana uu taagnaanaya halkiisa su'aasha labaad oo qataraan weydiinaya waxaa waaye markii koowaad waxaa ku bilowday dhaqaale laga sheekeeyo Soomaaliya ma lahan haddana waxaan ka sheekeynaynaa agriculture sector aan ka sheekeynaynaa service aan ka sheekeynaynaa marka say isku qabanayaan dhaqaalahaas aan ka sheekeynayno iyo dhaqaale laga sheekeeyo ma jiro marka ma santiin wiilka dambe u dhib bismillaahir rahmaanir rahiim horta aad u mahadsan yihiin mas'uuliyiinta oo waqtiga noo soo horay insha Allah laba su'aal aan weydiin rabaa su'aasha koowaad waxay ku socotaa xildhibaanka maadaama uu codka shacabka u matalayo xildhibaan sida ognahay sida aad noo sheegteen dhaqaalaha wadanka biskiisa wuxuu ku xiran yahay adeegga dawladda ay bixiso yani dhaqaalaha kordho ama hoos ku dhaco waxay sabab u tahay dawladda haraanka u shaqeynayso marka xukuumadda hadda jirto ama kuwii ka horeeyay weli ma aan arkin xukuumadda xoogga saarayso sidii maanta siyaasadda ama dibadda ama danaheeda gaarkaas ay xoog ugu saarto siyaasad xoog yani xukuumadda xoog u saaraysa bulshada waxqabadkeeda ma jiro maadaama oo dhaqaalaha wadanku ku xiran yahay nidaamka dawladda ee siiso adeegyada bulshada ay siiso maxaa diiday in dawladda xoogga ay saarto adeega bulshada ay siinaysa qaybihiisa kala duwan booskii hadda xoogay ku saaray siyaasadaha dibadda ama waxyaabaha la midka ah midda labaad waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka maadaama aqoon-yahan dhaqaale uu yahay maadaama aqoon-yahan aad tahay oo
dad dhulkeena waxa yaalo oo qiimaha aad taqaano oo anaga noo qaar noga aqoon tahay maxaa doorkiina diiday dadka adiga asaagaaga inaad u istaagtaan maadaama xukuumadda ay ka gaabistay يعني دور كادين كو إنسان راي محد يدي إن بوشري شجار هانت أدين وعي جلسان سيجا ودهان ندت يعني حلو مسؤولين تدور دون جلسان. وما صنتها thank you وحام فيليا مركان ويعطي في جوابها أنا عنو تقعدنا هاي حلوان نو بالله. سؤال كواد حاجة ممكن يعقبضوا كمان كران وده شقين تا دولة الحية دولتها ما هاي دولة قبلية ده وعدبوي taasi mushkilad weyn baa ka taagan oo xagga waxa la yiraahdaa fiscal federalism ka wali moogta arintaasi sharci dhaba lagama sameyn waxa la sameeyay bari dhaweyd sharci cashuuraha ayaa la sameeyay sharciga cashuuraha runtii oo ah inay la mideeyo cashuuraha dalka oo dhan runtii caqabad weyn baa ka taagnay gudi ahaan anagu waxaan isku dayn arinta inaan dhexdhexaadino marka dhawaan baanan soo afmeernay inaan moogtay garowga ku wada kulanoon in cashuuraha dalka la mideeyo dawlad goboleedyadu dhan ka soo qayb galaan arintaasi arin caqabad taagneed bay ahayd oo muddo dheer soo jirtay aad bayna runtii markii la isku fahmay inay muhiim tahay muxuu ahay in la mideeyo oo muxuu ahay sharci qura wadanku uu wada yeesho wadanka isagoo gobol kastaaba iyo dawlad gobol kastaaba sharcigeeda leedahay laakiin haddana in la is waafajiyo mid muhiim ay noqoto sharcigii federaalka lagu ansixiyo marka caqabadaasi way jirtaa runtii wada shaqayntaasi haddii ay marka wada shaqayn dawlad goboleedyada dawladda dhexe aysan jirin dee dhaqaalaha laga sheekeeyaa ma jiro dhaqaalaha waxaa laga sheekeynaya dalkoo dhan lagama sheekeynayo dhaqaalaha muqdisho ama muxuu ahay puntland ama muxuu ahay kismaayo keliya lagama sheekeynayo marka taasi waa muhiim wey in laga gudbaana loo baahan yahay midda labaad waxa weeye su-aasha labaad ee weydiiyey wiilka waxa weeye xagga adeega bulshada runtii waa muhiim cashuur waxa loo bixiyaa in adeega bulshada la kobciyo oo la kordhiyo oo dadka wax loogu qabto laakiin waxaad moodaa moogta cashuurta la qaadiyo miisaaniyadeena weli in aad iyo aad u kooban tahay oo ay yar tahay inay muxuu ahay adeeg ku filan inay bixiso ay weli moogta aad uga gaabinayso marka sanadkii hore xogaa la isku orday in moogta xagga waxbarashada iyo xagga muxuu caafimaadka iyo xogaa loo kordhiyo laakiin runtii kordhintaasi aad bay u yarayd waxaana runtii muuqata inay runtii xukuumaddu xoogga saartay sidaad u sheegteen xagga arrimaha soo xaragelinta dawlad goboleedyada iyo dagaalka siyaasadeed baad moodaa inuu wax badan runtii muxuu ahaay uu ka daboolayo in muxuu ahaay runtii adeega bulshada wax loo qabto la kordhiyo xagga caafimaadka iyo waxbarashada iyo waxyaabahaas oo kale ama shaqo abuurka waxyaabo badan lagu sameyn lahaa inaad moodo dhinacaas inay xoogga saaray waa meelaha u baahan in si dhaba runtii muxuu ahaay loo fiiriyo waa mahadsantahay bashiir xaggaaga su'aalaha jira سؤال ويدي maxaad wax ugu qaban weyseen aqoon-yahanadiina ama dhaqaalaha ama markii horena aad uga hadalnay haddana waa marka su'aasha markaan soo gaabiyo waxaan dhahnay innaga haddiina aqoon-yahan nahay awood fulin ma lihin wax ma amarno waxna ma sameyno laakiin waxaan leenahay awood sheegid marka wixii waa caddeynaa hadda halka aan fadhina xataa waxay ka mid tahay dawladda waa fiirsanay waa arkay caddeyntii ka mid tahay qoraalkii way ka mid tahay toos inaan madaxdii u kulano aan isku aragno aan wax u gudbino ama qoraal ugu gudbino waa la sameeyaa oo dadaal ma yara runtiina ninka mas-uulka ee meesha jooga iyo xaaladda maanta soomaaliya ee ku jirta waxaa saaran dhan walba amni dhaqaale siyaasad wax walba problemkaas hal mar inuu wada xaliyo oo loo keenaya markaa qof la arko marka laguma eedeyn karo 100% inuu gaabinayo ama inuu dan kale leeyahay ama inuu si leeyahay caqabadaha mushkiladda waa iska jirtaa saa darteed dawlad la'aan dhaqaalihii ma hormarayo mana soconayo هذا ما صنت سؤال بانو مالينيا خطر عبد الله حسن أيضا لو يدي waxaan rabaa inaan wax yar ka taabto doctores ayaan mar waxay ka dhawaajisay xilliga dalka uu soo go'o dalka waxa la keeni jiray macaawino taas waxay dhibaato ku ahayd dadka beeraleyda ayay niyad jab iyo qalbi jab ku ahayd khasaarana u ahayd markii la keeno xilliga dalkeena uu soo go'o markii la keeno macaawinada dadka beeraleyda ama dalkeena ayaa hoos u dhacayay oo dadku waxay ihtimaam siinayeen deeqaha la soo gaarsiinayo ayadoo markaas wax faa'iido ah aysan noogu jirin
raashin nadiifana aysan ahayn maysan jirin marka qorsho ku aadan dalaga beeraha xilliga uu soo go'ayo in laga ilaaliyo suuqa in uu soo galo deeq ay soo gasho ama raashin uu soo galo in laga ilaaliyo galmi aysan jirin taas ayaa waxay sababtay in dadka beeraleyda ah ay dib u gocdaan ay gadaal ay u sikadaan xilliyada markii ay dalagii ay ku daaleen ama ay ku rafaadeen uu soo go'o haddana qiimo suuqa uu ka yeelo waayo bulshadana ay ayadana maxaa la dhahaa garab ku sii waayaan in ay dalageena ay qaataan midda kale aan raba inaan ku dirsado waxay tahay bulshada ayadaa ka qayb qaadan karta in uu dhaqaalaha soo kaco markii aan isticmaalno dalageena anaga aan isticmaalno laakiin haddii aan isticmaalka aan badino waxa noola soo dhoofinayo waxaan yaraanaya dalageena inaan isticmaalnaa yaraanayso taas waxay keeni kartaa in dhaqaalaheena oo kobci waayo ama wax kobaca aan sameey weyno dhaqaalaha uu sameey waayo taas ayaa ka qayb qaadanaysa waxaan rabaa markaa su-aashan i weydiiyey in aan u gudagalo oo walaalkay i weydiiyey su-aashaasi oo ah waxaad dhahday dhaqaale laga hadla ma jira haddana waxaad ka hadlaysaa beeriyaa ka hadlaysaa beeraha waxaan uga hadlayo waxay tahay waa isha ugu muhiimsan ee dhaqaalaha oo wadanka uu leeyahay waaye haddana sidii la rabay looma sameeyo istiraatiijiyad ku aadan ma laha waxay u baahnaa lahaa beeraleyda ama shabeelooyinka aan hadda anaga aan dalagyada ka samaysano in loo sameeyo daato ama xog aruurin waxyaabaha ayaga ay ka cabanayaan waxyaabaha ay u baahan yihiin si loo garab istaago ay markaasi u istaagaan ayagana in ay soo saaraan dalag fara badan 3 biloodba dalagyo fara badan si uu soo go'o haddii sida saxda ah loogu talagalo dalagyada ay u soo go'aan waxaa dhaqdhaqaaq yeelanaya dalka waxaana laga dareemayaa dhaqaalaha laga dareemayaa laakiin bulshadu waa inay garab istaagtaa dadka beeraleyda ah ee isticmaalaan dalaga beeraheena ka soo go'a waa inaan yareynaa waxa noola soo dhoofinayo oo aan isticmaalayna sida briiska iyo baastada ayadoo aan noogu jirin caafimaad waa maasantahay intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha wadahadalka dadweyne ee macadka Samadoon waxaa ka qayb galay xildhibaan Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya ka tirsan guddiga maaliyadda ee baarlamaanka golaha shacabkana qayb ka ah iyo waxaa ka qayb galay Professor Bashiir Sheekh Cabduqaadir oo ah aqoonyahan arrimaha dhaqaalaha bartay Qadar Cabdullaahi Xasan gudoomiyaha golaha dhexe ee ururka Nakiso tan iyo inta barnaamijka la mid ku kulmi doona nabadgelyo